xalay waxaa dhacay iskahorimaad u dhexeeya Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Iiraan. Inkastoo iskahorimaadkaasi uu koobnaa oo Mareykanka uu sheegay inuu ka jawaabayo markii lagu soo dhawaaday ama la weeraray saddex ka mid ah gujisyadiisa, dowladda Iiraan ay sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Waxaa la beegsaday laba dekedood oo muhiim u ahaa dowladda Mareykanka, jasiiradda lagu magacaabo Qashim iyo sidoo kale ee dekadda Bandar Abbas ayaa weerarada ugu badan ay ka dhaceen. laakiin saacado kadib weeraradaasi waxaad moodaa inay ahaayeen kuwo ujeeddo gaara laga leeyahay. Ma Imaaraadka Carabta ayaa loogu aargudayay oo muddooyinkii ugu dambeeyay weeraro la kulmayay, mise ujeeddo kale ayaa ka dambaysa? Markii dambe Mareykanka iyo Iiraanba waxay sheegeen xabajoojintii in aanay burburin. laakiin CIA-da Mareykanka ayaa soo saartay warbixin ka yaabinaysa madaxweyne Trump. warbixinta sirta ay ka soo baxday xarunta taliska dhexe ee sirdoonka Mareykanka waxaa lagu sheegay in dowladda Iiraan ay awood u leedahay inay ka badbaado cunaqabataynta iyo go'doominta Mareykanka ugu yaraan 3 bilood ama 90 maalin oo hadda dhiman. waxaana suuragal ah baa la yiri inay sii adkaystaan muddada sidaasi u dheer. warbixintan waxaa lagu daabacay wargeyska Washington Post oo Mareykanka ka soo baxa. CIA-da marka waxay leedahay Netanyahu iyo madaxweyne Trump maxaad inoo daalinaysaan? 90 maalin dadkan way adkaysan karayaan. 90 maalin hadda dhimanna Mareykanka khasaare intee leeg ayuu la kulmi karayaa. suuragal ma tahay maraakiibtiisa inay halkaas ay ku sugnaadaan oo ay badbaadiyaan ama ay gelbiyaan maraakiibta isku dayaya inay Mareykanka hormuustay ka gudbaan? waa in xal kale la raadiyaa. Netanyahu maalintii Arbacada waa tii uu lahaa Iiraan iyo kooxaha ay taageerto waxay yihiin kuwo aad u nugul marka la eego xilliyadii hore. madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay dagaalka mar horeba in lagu guuleystay. talaadadiina waxa uu yiri gantaaladii dowladda Iiraan waa la burburiyay. laakiin qiimeynta cusub ee hay'adda CIA-da ee dalka Mareykanka waxay gebi ahaan meesha ka saaraysaa hadallada madaxda Washington ka soo baxaya toddobaadkan. Iiraan waxay weli haysataa in ka badan awooddeedii gantaalada. hay'adda sirdoonka ee Mareykankana waxay leedahay 70% Iiraan weli awooddii gantaalada way haysataa, oo haddii dagaal lagu laabto lagama guuleysanayo. go'doomintan bilaa dagaalka ahna 90 maalin way u adkeysan kartaa. wargeyska Washington Post waxa uu warbixinta ku saleynayaa 4 ilo xog ogaal iyo dokumentiyo sir ah oo uu sheegay in CIA-da uu ka helay. qiimeynta marka waxay shaki gelinaysaa hadallada rajada badan oo inta badan ka imaanaya madaxweyne Trump iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Netanyahu. Trump wuxuu hore u sheegay in cunaqabataynta dowladda Iiraan ay hor istaagtay dakhli gaaraya ilaa $500 milyan oo dollar maalintii oo dowladda Iiraan ka soo gali jiray dhoofinta shidaalka. laakiin gabi ahaanba waxaa la leeyahay hadda marka taa laga yimaado weli way sii adkaysan karayaan Iiraaniyiintu. dhinaca kale waxaa shaki weyn abuuray sawirro dhanka satellite-ka lagu qaaday oo laga helayo xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iiraan. dhaqdhaqaaqyo laga shakiyay ayaana lagu warramayaa in lagu arkay goob sir ah oo ku taala mid ka mid ah buuraha waaweyn ee dalkaasi Iiraan oo dhacda koonfurta xarunta nuclear-ka ee Natanz ee dalka Iiraan. sawiradaas oo ay qaaday shirkadda sawirada dayax-gacmeedka ah ee lagu magacaabo Airbus Defence and Space ayaa falanqeyn waxaa ku sameeyay khubaro ka tirsan macadka sayniska iyo amniga caalamiga ee Mareykanka. waxaana lagu muujiyay in tan iyo 22 Abriil albaabada laga galo sida la sheegay dhismaha dhulka hoostiisa ee xaruntaasi weliba dhanka bari kaga beegan in lagu arkay caro iyo dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo lagu talagalay in laga hor istaago gaadiidka doonaya inuu gudaha u galo. xaruntan sirta waxay ku taallaa koonfurta goobta nuclear-ka ama xarumaha nuclear-ka ee Iiraan ee Natanz. sawiradan waxaa qaarkood la sheegay in la qaaday 1 Abriil. waxaa qaarkood ay muujinayaan sawiradu in tanaladan ama albaabada laga galayo xarumahan aad moodo wax xanibaad ah oo kale in la dhigay. dhaqdhaqaaq kale oo laga shakiyay ayaa la arkay dhamaadkii bishii Abriil ee ina dhaaftay. marka la eego sawirada iyo falanqayntu waxay muujinayaan marka in si buuxda aanan loo daboolin xitaa albaabada qaar oo Iiraan ay ujeedo gaar ay ka leedahay, gaar ahaan xarumaha Fordow iyo sidoo kale Isfahan. xanibaadaas marka waxaa la sheegay inay adkeyn karto in gawaarida si degdeg ah ay kaga soo baxaan ama ay u galaan xarunta dhulka hoostiisa ah. waxaana loo baahan doonaa qalab aad u culus oo qodis ah si ugu yaraan wadooyinkaasi loo furo. waqti xaadirkan marka waxaa la isweydiinayaa sababtu maxay tahay. macadka falanqaynta sawirada ku sameeyay wuxuu leeyahay ma aragna calaamad muujinaysa in labadaasi tanaal dhinaca galbeedka sidoo kale la xiray, laakiin dhanka bari waa laga xiray. dhaqdhaqaaqyada marka waxay dhaliyeen su'aalo waaweyn maadaama goobtaani ay tahay xarun aad u qoto dheer oo dhulka hoostiisa ah oo ciidamada Iiraan aad ay u ilaaliyaan. nuclear-ka Iiraanna la rumaysan yahay inuu yaallo, haddana loo isticmaali karayo in qalabkaani iyo waxyaabaha muhiimka lagu ilaaliyo. waxa la isweydiiyay waa maxay sababta hadda dhaqdhaqaaqaasi ku soo beegtay iyadoo wada hadalladu ay socdaan ugu yaraana la doonayo in heshiis la gaaro. wararka qaar marka waxay sheegayaan dhaqdhaqaaqyada inay muujinayaan halkaas qalab aan caadi ahayn inuu yaallo.
maraykankana suuragal ay tahay inuu ka fekerayo in iiraan hubkeedii nuclearka halkaas ay ku hayso. waan arki doonaa qodobkan waxyaabaha ka soo kordha. dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegtay maanta oo jimco ah waa berigii in nidaam difaaceedkooda uu la tacaalay weeraro gantaalla iyo diyaarado daroonisa oo dhanka iiraan ka yimid. waa markii saddexaad oo imaaraadka uu ku eedeynaya iiraan in weerarkani ay ka dambeyso. weeraradan waxaa la sheegay dhawaaqa qaraxyadii ay sameeyeen in laga maqlay qaybo badan oo ka mid a dalka isutaga imaaraadka carabta. wasaaradda gaashaandhigga waxay digniin u dirtay dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta guud ahaan ee reer imaaraad, waxaana la yidhi uma dhowaan kartaan, ma taaban kartaan, sawirna kama qaadi kartaan waxyaabaha burburka ah ee dhulka ku soo dhacay kadib markii nidaam difaaceedka uu soo riday gantaalada ka yimid dhanka iyo dowladda iiraan. waxaana la yidhi arrimahaas waa inaad u daysaan qubarada iyo saraakiisha dhanka amniga ee ku lugta leh. marka haddii aad imaaraadka ku sugan tahay, warkaan fadlan iska maqal, ha u dhowaanin, ha taabanin, sawirna ha ka qaadin. fariintaas waxaan malaynayaa ruuxa soomaaliga inuu ila fahmayo imaaraadka jooga. ilan dadka kale ama af carabi ama hindu urdu aan idhaahday ama ingiriis waxbay ku wada hadlaan, mogta soomaaliga ma fahmayaan. imaaraadka marka wuxuu horay sidaani oo kale uu sheegay maalmihii isniinta iyo talaadada in weerar uu kaga yimid dhanka iyo dowladda iiraan. iiraan arrimahaasi gebi ahaanba way beenisay. maalintii talaadada ahayd iiraan waxay ku hanjabtay inay si adag kaga jawaabi doonto tallaabo kasta oo ka dhana jasiiradaheeda, dekadaheeda iyo sidoo kale xeebaheeda haddii weerarada laga soo qaado dhanka iyo imaaraadka carabta. iiraaniyiintuna waxay rumaysan yihiin in wax walba oo hadda socda, marinka hormus qorshaha la doonayo in lagu furo, cadaadiska iiraan la saarayo, saldhigyada maraykanka u isticmaalaya, wax walba dhanka imaaraadka inay yihiin. hase yeeshee taliska qaatib al ambiya ee dowladda iiraan ayaa marar badan waxa uu diiday ama beeniyey wararka imaaraadka ka imaanaya saacada ka hor. bayaanka imaaraadka carabta, maraykanka iyo iiraan ayaa isfara saaray oo iiraaniyiintana waxay sheegeen inay u dhowaadeen maraakiibta dagaalka ee dowladda maraykanka, iyadoo xiisada sidaasi ay tahay weli in ka badan 1,500 oo markab ayaa la rumaysan yahay inay hareeraha marinka hormus ay taagan yihiin, halkaasna ay ku xaniban yihiin. sidoo kale maraakiibta waxaa la rumaysan yahay in ka badan 22,000 oo badmaaxiina ama shaqaale inay saaran yihiin. isbuucii toddobaad ayay xaaladdu ku adkaanaysaa maraakiibta qaar, waana ay ku adag tahay inay halkaas ay taagnaadaan. qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo maraakiibtaasi saaran ayaa macluumaadyo qaar ay kula wadaagayaan, yacni waxay ku sheegayaan in xaaladdu ay adag tahay oo ay rajeynayaan mar un in marinkani uu furmo si ay kaga gudbaan, maadaama ay maraakiibta qaar ay la shaqeeyaan dhallinyaro soomaaliyeed. xalay xitaa waxay ii sheegeen inay arkayeen yacni gantaalada labada dhinac ay isweydaarsanayeen oo dushooda maraya. maraykanku waxa uu leeyahay in ka badan 1,006 markab ilaa 1,005 markab ayaa halkaasi ku xaniban. iiraan waxaa laga doonayaa maraakiibtaasi inay furto. tan iyo dagaalka markii uu bilowday ayaa iiraan gebi ahaanba marinka hormus ay albaabada isugu dhifatay. waan arki doonaa arrimahan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha allah.